الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواني واخواتي soo dhawaada mar kale waa walaalkiin axmed jawhar shalayt hore waxaad arkayseen madaxweynaha maraykanka oo intuu xanaaqay markii ceasefireka la jebiyey ee israa'iil ay jebisay iiraanna ay isdifaacday ay ka daba jebisay in uu xanaaqay uu maaragtay idaacadda horteeda uu caytabay uu f word uu isticmaalay qodobka labaad isla arki doona waxaa ka mid ah nin economist ah oo maaragtay maraykan ah oo aad very critical uga ah uh, American government policy when it comes to marka laga hadlo foreign affairs. Ninka waxaa la dhahaa Jeffrey Sachs waa nin economist ah runtii aadna uga hadla u analyse gareeya marka sababta uu maaragtay Trump uu dagaalka u galay amaba uu u qaaday ayuu sheegaya marka isagana wax baan ka odhanaynaa waxaad sidoo kale aad aragteen dabcan in ceasefire xabad joojin in la sameeyey su-aasha la isweydiinaya waxay tahay xabad joojintani ma sii socon doontaa oo ma noqon doontaa wax maaragtay meel mar ah qodobka afraad oo aan isleeyahay malaha waa u baahan yahay in la taabto ayaa ka mid ah in uu maxaanku dhahday meelo badan soo maray ra-iisul wasaaraha dalka iiraan inuu tegay yurub inuu tegay istanbul inuu tegay maxaanku dhahday russia muxuu kala yimiday oo uu kala soo noqday qodobka ugu dambeeya oo aan isleeyahay malaha waan u baahannahay in aan ku baraarugno innaga marka aan nahay soomaali markaan nahay muslimiin waxaa waaye jaran la waraystay hadda ka hor oo television dad si gaara ay u leeyihiin oo new york ka soo baxa oo freedom ka hadla xorriyadda maxaan ku rahday ummadda bini-aadanka dalalka laga waraystay oo laga wareysanayo dagaalada iyo maraykanka uu dagaalada u qaado caalamka uu ku qaado isagoo markaa la weydiiyey loo yeeday dagaalkii ciraaq marka ciraaq maaragtay mas-uuliyiinta ciraaq ka mid ahaa maaragtay askarta militariga jaranada maraykanka marka wuxuu ka hadlay 7 dal oo ayagana maaragtay within next 5 years to 10 years in dhulka lala simo oo la badhaali 7 dal ayaa ka mid ah ayadana waan arki doonaa okay waxaad arkayseen Trump ila fiiri imagekan oo maqal waxa I'm uu not leeyahay happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. waxaad arkaysaa in uu maaragtay Trump xanaaqsan yahay dabcan isla markaana wuxuu usoo kicitimayay Hague oo ay ka dhacaysay kulankii weynaa ee maxaan ku dhahday degdeg ahaa ee NATO ay ku kulmayeen oo ay ka wada hadlayeen xaaladda bariga dhexe iyo sida wax looga qaban karo ama wax looga bedeli karo ama wax looga samayn karo marka isaga oo diyaaradda usii socda ayaa la weydiiyey oo lagu yidhi journalistayaashu afkay ku gelinayaan moogtahay hadalka marka qaylada waad maqlayseen mid baa waxay leedahay iiraan ceasefirkii bay jebisay ka waran israa'iilna waa saas marka wuxuu leeyahay f word buu isticmaalaya ugu dambeynta ma garanayaan wax balaayi jin wax u akrinaya marka waxay sameynayaan 2 dal oo isku baaba'ayaad arkaysaa oo isbaabi'inaya waxa ay ka shaqaynayaan wuu caytabay markaas marka wuxuu aad carabka ugu adkeeyey in uunan maaragtay ku faraxsanin waxa ay Israa'iil samaysay iyo sida ay u dhaqantay iyadoo oo leeyahay 12 saacadood gudahood waa in aad maaragtay ceasefire aad ku samayso in ay iyaguna ay ka baxeen marka twitterkiisa wuxuu ku soo qoray madaxweynuhu in uu u digayo uu maaragtay la hadlayo Netanyahu uu leeyahay waa inaad sidan iyo sidan iyo sidan waa inaad yeesho tallaabadan ma qaadi kartid waa inaad maaragtay beelodada la soo celisid misiladaas maaragtay hubka intaa la eg ma tuuri kartid wax aynkaas marka yaa dhagu dhigay su-aasha waxa weyaan yaa dhagu dhigay marka aan u imaado dabcan waa hadal annaguna waan hadlaynaa adiguna action ka samey weyaan
kabacdina diyaaradiisu iska raacay ilaa shirkii nato. markuu shirka nato uu yimiday uu maaragtay meeshaas joogay ayaa la wareysanaya. markaas wuxuu leeyahay markaan waxaan aada uga xumahay Israa'iil in si aan weligeed loo taabanin ama loo garaacin in loo qaraaco. tallaabooyin xun ayaa ku dhacay Israa'iil, burbur waxaa soo gaadhay dabaqyo oo aad maaragtay marka ma adkaysan karo. wuxuu iska feelinkiisii uu maaragtay uu feelin hadlaya bay dhaheen markay analysis ku sameynayeen qaabka u hadlayo body languagekiisa waxaasoo dhan uu dareen hadlaya ayay dhaheen madaxweynaha. ninka la yidhaahdo Jeffrey Sachs waa nin professor economist ah, runtii odorosa analysis ku sameeya maxaan ku dhahday siyaasaadka caalamka see socdaan, gaar ahaan aada critique ugu sameeya hadduu alle ku roon yahay maraykanka iyo bolisigiisa ku wajahan caalamka intiisa kale. marka wuxuu leeyahay nin baa wareysanaya. What is the real reason, in your understanding, why Donald Trump bombed and attempted to destroy a lawful, inspected, approved uranium enrichment program in a sovereign country? Well, because Benjamin Netanyahu told him to. So the president followed his orders. wuxuu tilmaamayaa Jeffrey in madaxweyne Trump sababta uu u sameeyey in uu qaado weerarka ah saydadka maxaan ku dhahday Iran ay nuclearkeeda ku diyaarsatay ku samaysanayso uu u weeraray wax kale ma aha in uu wejiga ilaashado. ballantii maraykanka maaragtay ay u qaadeen Israa'iil inay u fuliyaanna in uu isku dayay in uu ku raaligeliyo ninka la yidhaahdo Netanyahu. waxaa yeelay Netanyahu isaga ayuu maaragtay ugu dambeyntii waxa uu sheego uu si dadban u qaataa uu u fuliyaa. marka Jeffrey wuxuu qabaa uu leeyahay Netanyahu wuxuu rabaa dagaalkan in uu geliyo Maraykan oo uu uga baxo isagu kabacdina ay noqoto Maraykan iyo Iran oo madaxaystaray. sidaas awgeedna loo yidhaahdo isaguna markaa uu u helo xoog Iranna looma soxo. ujeeddada waxay tilmaamayaan marka uu sheegaya niman kale oo maaragtay iyaguna odorsa siyaasadda waxay tilmaamayaan ujeedooyinka loo galay laba arrimood in ay tahay in la isku dayo kow horta regime change in la sameeyo oo Iran lagaga takhaluso ayatollah Khomeiniyadan oo dib loogu keeno shaah iyo maaragtay ciddiisii dadkii markii ugu dambeysay 79kii markuu maaragtay Khomeini imaanayay lagala wareegay laga saaray meesha boqortooyadii in lagu soo cesho oo markaa regime change la sameeyo. labo in uraniumka iyo maaragtay nuclearka ay isku dayayaan in ay samaystaan in iyadana loo masaxo waxaasoo dhanna la mulkiyo oo gacanta lagu qabsado sidii Ciraaq gacanta loogu qabsaday. waxaa markaa ku hoos jirta oo aynan sheegin inta badan la shaacin cajaladii horena aan ku sheegay inay Iran heshay macdan caalamku siduu u idil yahay China ay haysato. macdantaasoo ah macdan lagu sameeyo hubka, lagu sameeyo nuclearka, lagu sameeyo maxaan ku rahday wax kasta oo la xidhiidha dabcan mining bay leeyihiin wax kasta oo la xidhiidha technology ama maxaan ku rahday bom lagu sameeyo. okay maraykanku iyo dalalka reer galbeedku China ayay maaragtay trade treaty ay wada galeen yacna maxaa la dhahaa suuq in dhaqaale la wada dhiso la sameeyo iyagana wax laga gato Chinahuna iyaga wax ka gataan sidaa isweydaris exchange suuq lagu sameeyo. marka shirkii lagu galay maxaan ku dhahday London bishan aan ku jirno 15keedii waa kii lagu kala kacay ee la isku diiday ee China ay tiri arrintaas idima siinayo yacna macdanta idin siin maayo mana aha wax maaragtay in aan ka wada hadalla ay tahay. yaa helay marka macdantii Iran baa heshay. Iran markay heshay la ogaaday inay heshay
waxaa la dhahay meesha noogu dhow ee aan ka heli karnay alternative waxaa waaye maxaan ku dhahday iran inaan doonano. marka one of the hidden agenda ayay ka mid tahay oo aan loo sheegaynin caalamka sababta loo weeraray iran. Eh, prime ministerka maxaan ku dhahday iran in uu Yurub yimaado, Brussels uu yimaado, Jarmalka uu yimaado maxaan ku dhahday Istanbul, ugu dambayntana uu tago Russia. intaas waxa uu maaragtay ka shaqaynayay in uu tuso atrocitieska iyo maaragtay gabodfalka iyo dembiga uu Maraykanku galayo, isla markaana ay cadaalad darro ay ka jirto. adeer qoladan gaaladu waa milla waaxida. mid kaasoo dhaweysanaya ama maaragtay adiga kula tacaatufaya ma jirto. ugu dambeyntii Russia markuu tagay, dabcan Turkigu waa kii hadlay aada maqasheen ee dhahayay maxaan ku dhahdaa haddii dagaalka la joojin waayo macnaheedu waxaa waaye caalam islaami iyo Israa'iil inay isku baaba'aan. marka ninkan markuu ruushka tagay, ruushka muxuu kala yimiday dabcan laba arrimood: inay ceasefire ka qaataan maadaama Maraykan dagaalka uu soo galay. haddii uu dagaalka soo galo oo B-12 iyo maxaan ku dhahday F-35 lagu qaraacayo, waxay noqon doontaa marka inuu dagaalku isku bedelo dagaal nuclear. marka waktigana dagaal nuclear waqtigaan u diyaarnahay ma aha. marka iiraanay isdeji, caadi iska dhig. hadda adigaa gacanta sarreysa ah, adigaa meel aan la taaban weligeed, adigaa taabtay, waa ku gargaarnay, waa ku garab joognaa, waan ku taageeraynaa, laakiin waa inaad ogolaato ceasefire. marka runtii dabcan iyadana maslaxad baa ugu jirta si ay yani hubkeeda nuclearka ay ula soo baxday u samaysato. marka ikhwaani, lucbadani meelo kala duwan ama gamekani meelo kala duwan baa maaragtay laga ciyaaraya. Israa'iil iyo maxaan ku dhahday Yurub iyo Maraykan oo dhinaca, Pakistan, Russia, Istanbul iyo maxaan ku dhahday Beijing, China oo dhinaca, oo maxaan ku dhahday laba taxaaluf oo laba dhinac kala ah ayaa meesha ku jira. ayada oo la weydiinayo ayaan arkayay ITV News maxay u haysan karin ama u samaysan karin Iran maxaan ku dhahday nuclear weapon. waxay ku jawaabayeen aqoon-yahankaasi, waxay lahaayeen regionka in ay ka noqoto leader ama influencer, raad in ay ku yeelato ayaa la diidayaa, maadaama agagaarkeeda, maadaama agteeda ay ku nooshay Israa'iil, oo Israa'iilna threat ay ku tahay sida Maraykanku u dhigayo. dhinaca kalena Pakistan, dhinaca kale ay ka tahay Pakistan haysato nuclear. in dagaalka qabow ee jira cabsi xoog iyo awood islaami ah in ay soo baxdo. taasi marka waxay inoo gudbinaysaa tii generaalka la weydiiyey ee layidhi dalalka la raba in la baabi'iyo yaa ka mid a. marka 7 dal ayuu tiriyey. waxaa ka mid a Syria, waxaa ka mid a Ciraaq, waxaa ka mid a Libnaan, Libiya, Soomaaliya, Sudan, ugu dambeyn Iran. inta 7daa dal ee aad arkaysiin ee aan sheegnayna waa la wada weeraray, waa la galay, waa la baabi'iyey, waa la isku maxaan ku dhahday xukumadoodii dhulka lala tiray. waxaa ugu dambeysay Iran. Iranna waa ka iminka dhulka la rabay in la dhigo, laakiin laguma guureysin. okay, clipka soo socda waxaan isweydiinaynaa ceasefire, xabad joojin baa la sameeyey. xabad joojinta iyay maslaxad ugu jirtaa. xabad joojintu ma sii jiri doontaa mise dagaalku wuu soo noqon doonaa? Israa'iil oo handadaysa oo hanjabaysa, Iiraan oo maaragtay iyaduna le maxaan ku dhahday waxaan sii wadaynaa in aan maaragtay hubkayagii aan helno. marka inoo iyo is arag dambe oo xiisade. baaraka allahu fiikum. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.